I don't know what to do Soomaaliya I don't know waxaan galabsaday ilaa hadda nolosheedii ma garanayo qofaan dhibay waxaan ku hadlo ma garanayo hooyanahay ubadkaygii baa daawanaya waxaan ilaa saakay soo garaacay walaal baan leeyahay wiilal baan la dhashay wiilal baan dhalay macnaha waxa weeyaan waxyaalo waxa jira tuu private oo rabin inay maxaan ku dhahdaa your own child inuu arko iyo walaalka hooyada dhashay inuu arko aanad rabin ayaa jira waxaan ku oran lahaa hal mar waxaad haysid shaygiisa soo raacay allisa yaryaraysiga way dhaamadaayda hal mar ay dhaafto soo daa adii anigana waa inoo maalinta yoomul qiyaame haddaan nasiib lahayna adduunka isku arkayna ilaa iyo hooyadaaban ka talaabsan wallahi waxa kasta waad ka dagaalami kartaa wiilkaagoo la gowracay xataa waad ka dafal celin kartaa laakiin sharaftaada iyo cirdigaaga iyo karaamadaada marka loo soo dhigto kama dagaalami kartid and I know this inay everyday dhacdo maalin kasta gabadh Soomaali inay ku dhacdo laakiin adduunyada waxa ugu daran markaad qof bini aadan aroor kasta intaad soo kacdo aad ku soo kacdo inaad qofkaas qof inaad noloshiisa baabiiso taas ugu daran dadka arsaaqad kale way waayeen maanta aniga waxa weeyaan waxa la igu soo weeraray waa just waa karaamadii weeyaan oo sharafteedii maraysaa toban jeer baa message la isoo diri jiray waan maqli jiray in la ii hanjabo laakiin I didn't know how cool and hateful inuu qofkaas yahay I didn't know hadda wiilkan waaba wiil boo isaga dee nin raga wax lama yeelo laakiin ani isaga waa nin raga Soomaali ma nahay only mar walba dhibaatada dhacdaaba dumarka unbay ku dhacdaa nin raga sawirkiisa la soo dhigo amba naag dhunkanaya amba naag la jooga iyagoo naag kursanayaaba wax noqonin laakiin waxa dhaawac gaaran un waa dumarka weeyaan you have no idea waxa naga dhaxeeya ma ogid waxaan isku nahay ma garan kartiin wixii anaga relationship-kayga iyo noloshayda waxay tahay ma garan kartaa taleefankayga markaad surgery ku samaysay aad qashay intaasoo kaliya aad heshay intii baanad mooday inaad wax igu yeeli karto ani hadda waxaan ku ooyay waxa weeyaan ilmahayga sharcigiisii oo yaacay ma aragtay maanta Snapchat dhexyaala kama oohinaya ani waxa igu dhacay this is what I did is aniga weeyaan aniga waxaan cuqdad ka qaba maaha because aniga iyo wiilkan relationship-kayga iyo wixii naga dhaxeeya ma garan kartid kali haatay waxaan beerka i qarxiyay ubadkayga isoo wacay waxaas daawanaya iyo sharciga ilmahayga bana ma aqaano waxaan ku geysanay maxaan ku dhahdaa aan ka galay ma garanayo xumaatada inta la eegin haybka inta la eegay qabtidna aanu garan maayo haddaad doonaysid inaad ani ibaabiiso waxay ahayd inaad ani keligay ibaabiiso dee waxaad iga haysid la ordaysa aad ma aragtay aad ani keligay la timaad inaad dad kale maxaan ku dhahdaa ay dul saartana ma ahayn oo qof kale ila raadiso inaad isaga inay la baabiiso ubadkaygana inaad ma aragtay maxaan ku dhahdaa aad raadiso ma ahayn alxamdulillah inaanan carruurtayda ku haynin halkaas sawirradooda iyo wax barayfada ubadkaygu leeyihiin inaanu snapka ku jirin taas waa alxamdulillah social security-gaasi aad meesha la soo dhigay iyo dareef laysankaasi shalay baan screenshot ka qaadan carruurtayda u diray maantana waad arkaysaa wax walba waxa igaga daran aniga igaga daran maxaan ku dhahdaa waxa ani igu dhacay igaga daran sharciga ilmahayga ummadda lala sheergareeyay dareemi kartaan social security-ga ilmahaaga in to be